shaki badan ayaa la geliyey shirka ka dhacay magaalada london shalay. shirkaasi ayaa waxaa shirkadda spectrum oo ah shirkad aruurisa xogaha shidaalka ay ku soo bandhigtay xogo ay ka soo ururisay soomaaliya. intuu shirka socday waxaa bannaanka goobta uu shirku ka dhacaya ku banaanbaxayey dad soomaali ah oo shirkaasi ka soo horjeeday. haddaba warbixintan waxaa inoo haysa waryahayaga falastiin axmed iimaan. shirkan ayaa ka hor inta uusan furmin waxaa soo baxaya xogo iyo aragtiyo kala duwan oo laga bixinaya qaabka uu noqon doono. sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa ka diga shirkaasi. wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirashiid maxamed axmed ayaa sheegay in shirkan lagu soo bandhigayo oo keli ah xogihii ay soo urursay shirkadda spectrum. cid kasta u caddaha maanta inaan shatiyo la bixinayn, cid shati bixisa male. keliya waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyay badda Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee daneeya qoda ama ka shaqaysta shidaalka. dhammaan shaqada aan qabanayno waa shaqo daahfurnaan ku salaysan, mana dhici doonto si hoose banaankiiba imaan doontaa si aysan taas u dhicin. dowladda hadda wasaaraha xasan cali khayri iyo madaxweyne maxamed farmaajo marna ogolaan mayso wax hoose loo qabto. wax kasta waxay ku salaysan yihiin transparency. balse madaxweynaha dowladda federaalka oo ka hadlay magaalada muqdisho shalay waxa uu sheegay in shidaalka soomaaliya aan la sugi karin 20 sano loona baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabka baahan, islamarkaana in la hakiyo ay tahay arrin uusan aqbali karin hogaamiye shacab. ummadeenna baahi iyo u dhinteen, annagana khayraad yaan dul fadhinaa, mana yeelin annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummadeenna in ay ka gaajoodaan. qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas. jibriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ayaa sheegay in inkastoo ay tahay arrin wanaagsan in shidaalka soomaaliya xoogihiisa la baaro, haddana ay tahay mid laga shakin karo in shirkadda spectrum ay bixisay qarashaadka shirkan ku baxaya. shirka in la isugu yimaado oo lasoo bandhigo macluumaad ku saabsan shidaalka soomaaliya waa arrin dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeed runtii sharaf u ah oo wanaag u ah, oo halkii waa tugsadeen iyo waa dawarsadeen iyo waxay u shirayaan in wax loo yabo ay maraysay. hadda in khayraad soomaaliyeed baa lasoo bandhigayaa macluumaadkooda oo adduunkii loo sheegayaa inuu yaallo oo uu jiro la dhaho waa arrin aada u wanaagsan oo runtii dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay daneeyaan oo ay ka wada hadlaan oo ay ka munaaqashoodaan. dhanka kale waxaa jira arrintan iyo shirkadahan hawshan gacanta kula jira ma aha kuwa nagu cusub. ilaa sanadkii 2013 bay hawshan soo socotay. shirkad la yidhaahdo Soma Oil oo ra-iisul wasaaruhu uu madaxdeeda ka mid ahaa iyo ayaa ku wareejisay macluumaadkan shirkadan hadda soo bandhigtay ee la yidhaahdo Spectrum. shirkadda Spectrum ayadaa kharashaadka shirkan iyo kharashaadkii ku baxay baaritaanadii hore oo dhan bixinaysay. xoogaa heshiisyada noocaas ah dadka soomaaliyeed runtii walwal bay ka qabaan in lagu dhaxal wareejiyo ama muran la geliyo xuquuqdoodii iyo waxyaabihii iyagu ka faalahaayeen. duniya cali oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay banaanbax ka dhacay magaalada london kasoo horjeedka hoteelkii uu shirkan ka dhacayay ayaa waxay u sheegtay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli. maadaama aanan haysan baarlamaan oo diyaar u ah Soomaali inuu matalo, baarlamaankeenu uu yahay baarlamaan ka fikiraya danihiisa gaarka ah oona shacabka u hiilinaynin, waxaan u taaganahay in awoodda shacabka ku soo noqoto, dowladnimada shacabka ku soo noqoto, oon u hadalno dalkeena dhibaatada ka jirto. waxaan u taaganahay inaan nala dareemo maadaama aan haysanin wax matalo, dowladdiina ay waxeeda hoos ku gadanayso, waxaana aan laga helay meediyada aan laga helin dowladda inayna ka hadlin, baarlamaanka aysan u gudbinin ee laga helay qoladii shirka samaynaysay website-yadoodii laga helay oo yidhaahdeen anigoo dadkaan la kulmaynaa ayna dowladdii kalsooni ee shacabkeedii ku hanata laheen, ee shacabkeedu wax u soo gudbin karin, ee shacabkeedu wax u sheegi karin. annaga shacabka Soomaaliyeedaan nahay indhaha tusinno inaana dalkeena sal ahayn. dhibaato badan aan soo marnay, marba heerna la gaarsiiyey, mar kasta dadka la dili jiray, maantana la rabo in dalka baanbaan lagu iibiyo. dadka qaar ayaa ku talinaya inay habbooneed in dowladdu ay u tala badsato arrintan, islamarkaana ay xogaha ay haysa la wadaagto baarlamanka iyo weliba horjoogayaasha ururada bulshada. waa kan jibriil cali oo maxamed mar kale. runtii dowladda waxaa la gudboonaa inay samayso wacyigelin inta aan hawshan loo bandhigin shisheeyaha, in shacabka Soomaaliyeed la tawjiihiyo, la wargeliyo, wixii si saraaxad leh loogala hadlo. laakiin waxay noqotay xoogaa yara qarsoodi wax u eg markii hore. kadib haddana dowladdii oo sidaad xasuusato Koonfur Africa waxaa agaasimaha wasaaradda batroolka kusoo bandhigay in London shir ka dhici doona, lagu gadi doono, lagu xaraashi doono xirmooyin ka mid a badda Soomaaliyeed. arrintaas marka dadka runtii walwal bay ku abuurtay.
kabacdi dowladdii arrintii way faahfaahisay inaan wax la gadaynin oo macluumaad lasoo bandhigayo oo markaa kabacdi shuruucda iyo nidaamka iyo qaabka saxda ahaa la mari doono ayay sheegeen. waa arrin wanaagsan, laakiin waxaa la rabay inay hormariyaan faahfaahintaas oo ay dadka u diyaariyaan waxaan wanaag ah. runtii arrin wanaag ah oo dadka soomaaliyeed inay ku farxaan ay ahayd in muran ka dhasho oo dadkii qaarna ku mudaaharaado qaarna difaaco. xoogaa waxaa keenaysa wadahadal la-aanta iyo shacabka inaan warkii lasii gaarsiinin. waxaan rajeynayaa marka in aada looga fiirsado heshiisya noocaana marka la gelayo. waxaan kaloo rajeynayaa in dadka soomaaliyeed oo ayagu ah kuwa iska leh halkan in ay ku lug lahaadaan, ka warqabaan, macluumaadka hayaan oo ay ka og yihiin wax walba oo ku saabsan arrimaha. arrinta ku saabsan shidaalka iyo shirkan London waxa uu keenay walaacay dadka qaarkii qabaan, gaar ahaanna in xilligan adag Soomaaliya looga faa'iideysan karo heshiisyada caalamiga ay galayaan. sidoo kalena ka maqnaanshiyaha doorka baarlamaanka ee eegista heshiiskan iyo in ururada bulshada ay qayb ka noqdaan ayaa waxa ay tahay mid dadka qaarkii shaki ku abuuri karta. mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.